xukun karbaasha ku fuliyeen rag lagu eedeeyay fal kufsi ah ragani lagu jeedlay dhuusamareeb oo ah laba ruux ayaa dhowr bilood ka hor fal kufsi ah ka geystay degmada Guriceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana waxa gacanta ku hayay booliiska Galmudug culimada ahlu sunna wal jamaa ayaa maanta boqolaal shacab ay isugu keenay fagaaro ku yaala magaalada dhuusamareeb si dadka ay u daawadaan xukunka lagu ridayo raggaasi waxaana dadka hortooda xukunka ka aqriyo xubno ka tirsan garsoorka ahlu sunna wal jamaa si aysan mataqaana bari qiyaamo aysan cinqaabin kugu imaanin oo adduunka kaga harto oo nadiif uga noqotaan inaad mataqaana niyadiina hagaajidaan in ka fuliyo sidaas baa la rabaa marka waxa waa shay ilaahay amray weeyaan waad maqlaysaan aayadaha diiniga waad maqlaysaan marka waxa la rabaa xukunka ilaahayna in lagu raali noqdo sidaas baa la rabaa mataqaanayay dadkuna muslimiinta ahuna ay fiirsadaan oo si ay uga waantoobaan oo naftooda uga xakameeyaan waxa fawaaxista la yiraahdo marka sidaas ayaa maanta meeshaan halkan lagu fulinayaa waxa maanta la fulaa meesha la fagaara loo taagan yahay waa xuduud weey xuduudda marka waxay labadan noqotay boqol jeedal shida ka hadlay waxay noqotay markii xukunka la saaray la soo xukumay waxa ka dhacay oo la ogaaday inay sarguur soo marin markay sarguur soo marin waxay noqotay boqol jeedal labadan kiiba boqolka jeedal baa laga fulinayaa maanta markii boqolka jeedal lagu dhuftana waxa u dhimanaanaya waxa la yiraahdo erin hal sano oo qariib la yiraahdo hal sano al area meeshay waxaas ku suubiyeen baa laga fogeeyaa qormada u taala hal sano u dhiman oo la eriyaayo oo meeshay ku faleen waxaas macsida ku faleen laga dheereynayo mas'uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka Guriceel iyo dhuusamareeb iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska Galmudug ayaa madasha ka hadlay maantay waa arkaysi waxa lagu fuliyay xukunkii ay lahaayeen afar nin ayay ahaayeen waxa ka warrama sheekha labadii nin oo kale way dhameysteen xukunkoodii labada nin maanta ayaa xadkii shariicada islaamku ku xukuntay qayb kamid ah laga oofiyay halkan fagaaraha waxa loogu dhigay insha Allah su'aalo ayaa jiray culimadu waxa xukmiyeen ma oofi doonaan baa la dhihi jiray marka taas waa weeyaan way hartay xarwa hartay ayagana waxaan leenahay ilaahay u laabta waxa weeyaan waxaan waa wax sharci ah adinkana damba in kugu sugan ummadda islaamkaana damba ugu sugan waxaan leenahay waan ku faraxsanahay in xadkan halkan lagu oofiyo maanta shacabku uu sheegaynaa cid walba shariicada islaamka wax ka duwan ku dhaqanta ciidamada booliiska ama afkooda ku hadlaya in la soo waafaji doono shariicada islaamka xukunka ay leeyihiinna ay ku doon doonaan marka intaas ayaan ku soo gaabinayaa goobta xukunka ka dhacay ayaa waxa ku sugnaa ciidamo ka tirsan booliiska Galmudug kuwaasi oo amniga si weyn u adkeeyay Maxamed Cabduuli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal dhuusamareeb